بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa halabuur Ibraahim Cabdulqaadir Ibraahim Tanza. waxaan maanta halkan ku qabanayaa maanso aan ugu magac daray hooyo. inkastoo aan ognahay hooyo abaalka inoo gashay iyo waxa inoo samaysay inagoon gudi karayn waxa ay hooyo noo samaysay, ayaan waxaan rabaa halkan inaan ku caddeeyo qaar ka mid ah waxyaabaha ay noo samaysay anigoona markaa u duceynaya qaybta dambe ee maansada. maansaduna waxay ku bilaabanaysaa sidan: adaa muddo badan caloosha maamoo igu soo sidee, maamoo ifaal iyo xanuun adaa ila soo maree, markii aan duni imi maamoy adigaa dhunkashiyo farxad la maqsuudayee, murugti fawshaba ilowday markaan oyay baadba hooyoy micnaha ilintay dareentay, maamoy adigaa horaadka markaas ijiqsiiyayee, marka xigtana dhabarka adaa maamoy igu xambaaray anoon muluqoon ogayn micnaha dabkiiyo baraf midkii dhibahee daran midkaan waxba dhibine qabow, mid weliba waxa uu yahay adaa maamoy i baray. waxaan muddo badan gurguurto maamoy adiga mar un maasha allah wiilkaygiyow dadah maalintaasi dhahay, hooyoy afkii macaanaa malab lagu miisi moodid midkaa dunida ka caana, maamoy afkaygii hooyo oo aan maanta qurqurinayo maamoy adigaa i baray. markii aan koree barbaaray markaan caqliyeesta oon markaan wax badani ogaaday markaan micnahaaga bartay markaan miisankaa ogaaday oo aan milgahaagi bartay, maxay hooyoy ilintii marun iso dhaaftayoo murug aan la istaaga meel, haddaan makiyo xaramka madax kugu geeyo hooyo, haddaan maalin iyo habeen dhabtaba kugu haayo maamo, waxaan mar un ogaaday wax kasta marka aan sameeyo inaan marun gudi karayn abaalkaad maamo ii samaysay. nebigeen moxamed sallallahu calayhi wasallam baaba sheegay inaad 3 mar dheer tahay aabbaha abaalkiisa maamo, ma awoodo mana gudi karaayo, balse waxaan mawle kuu weydiiyey maamoy jannatul firdowsa, maamoy hooskeeda harso, allow mininkeed ka yeel mamaday jannatul firdowsa, allow mininkood ka yeel mamooyinkan jannatul firdowsa.